cismaan maxamuud jaamac badle oo odayaal dhaqameedka gobolka Sanaag maanta ayuu shir jaraad ku qabtay hoyga uu ku leeyahay degmada Ceelbe gobolka Sanaag wuxuuna ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ka soo cusboonaaday gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Yube oo ka mid ah deegaamada gobolka Sanaag dhaqdhaqaaqyada u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland ay haatan isku hor fadhiyaan deegaankaasi wuxuuna maamulka Somaliland ugu baaqay in ay dib ugu laabtaan fariisimadii ay ka soo kaceen waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya una diraya labada ciidan ee ka soo kala jeeda Puntland iyo Somaliland in ay goobta ay ku kala noqdaan raxmaan raxiim marka hore islaamka oo dhan maalin jimcaha wanaagsan baa ku salaamaya jimcaha khair qaba baa ku salaamaya islaamka oo dhan Allah iga aqbalo waxaan ka leeyahay Puntland iyo Somaliland waxba nama yeesho waayo iyo nagu soo duusho laakiin ciidanka nagu soo duula waa ciidanka Somaliland waxa leeyahay wadanka nabadgelyada lagu ogaa Ilaahay baa laga baryaa nabadgelyada nimca la qabay abaara jira Allah subhanahu wa ta'ala waxa loo ciidanka aad keenteen Sanaag bari oo soo dhultoobteen waxba dalkeeda kama haysto ka noqda dib uga noqda oo walaalnimadii iyo deersnimadii iyo xuquuq islaamkii si ilaaliya waayo hargeysa waa la joogaa ergaa waa la joogaa dadku waa isku mid waa isku deegaan waa isku isim waa isku waa walaalo waa xidid waa in dib looga noqdaa xabad looma baahna xal la soo xirayaan ma jiro Ingiriis iyo maxaanku wakiil laga ma aha Ingiriistu waxa weeye Soomaali oo dhan baa saartay wadan ka saartay dalkan ka hadlayana waxa weeye odayaashii dhaqanka baan ahay deegaankan ahay waxaan ku raahdaa waxa weeye dhulku taariikh buu leeyahay waxa qabsan waayay in Cabdullah Xasan ba qabsan waayay saacad joogo waayay meesha ku soo ordeysaan marka waxa weeye walaalnimada hala ilaaliyo darsimada hala ilaaliyo islaamnimada hala ilaaliyo wax allaale wax dalku idii hayaa ma jiraan walaalnimo waan hayn dib ha looga noqdo oo ciidanka maamul soo dhoobayo bil walba soo dhoobayo dib ha looga celiyo xadka sheegaysaan xadku xagu idii jooga walaalnimo iyo darsimada lagu noolyahay waay maamul goboleed baati shaalka gashanaysa Somaliland baa u hayday waxa weey maamul goboleed ba kamid ah Soomaaliya magaca Soomaaliya ba sheeganaysan ba oo islaamnimada Soomaaliya ba sheeganaysan dib waa yaa u noqda waxa weeye waa tusaale u siinayna dib u noqda luukiina ku noqda hadaa doonta gobolka Cergaba gala Cergaba waa loo jooga deegaan baa lagu leeyahay afar beelood weey isla sidoo kale oday dhaqameed cismaan maxamuud jaamac badle wuxuu ka hadlay xaaladda abaareed ee ka taagan deegaankan gobolka Sanaag iyo waliba biyo la'aanta daran ee ka jirta degmada Ceelbe gobolka Sanaag abaareed xaalad Ilaahay loo cawdo Allah subhanahu wa ta'ala oo rabbi loo cawdo baa ka jirta laba sano roob kama diin gugi xoogaa baa la helay hadeer deerse lamaba aragba xooluhu siyoos weeye biyo la'aan baa taagan gaadiidku hadeer iyo maxaanku adaa ganacsatadu waa soo kala taagan yihiin waxba waa la waayay ganacsatadu waa xarqday sidii shidaal iyo loo weydiinayay iyo nafaqo loo weydiinayay waa la soo taagay waa la xarqay miyo magaalo waa la xarqay abaar laba jira baa dalka haysataa biyuhu waa siyoos biyuhu waxay ugu yimaadaan baa loola cawdaa Allah subhanahu wa ta'ala deeq bixiya ilaahay baa laga sugayaa nimcada ilaahay baa laga sugayaa hadiga islaamku inoo ka dhaxayo la ilaaha illa maxaa soo baatana magaca Soomaaliya uga dhaxaya marka waxa weeye meel ay joogtaa way gacanta qabsataa dawladda federaalka sababtu ay tahay ummadda oo dhan iyada dawladdu ah magaca Soomaaliyeed ku shaqeynaysa waa la ixtiraam maqalla hadaan Sanaag bari waxaan ka haynaa ma jiro magaceedu baan maqalla bal inay Soomaaliya magaceeda ay hayso Soomaalidu magac u tahay way magac Soomaaliya bisiyataa maxamed bay u siyataa magac xamar qura hadii u siyato dahnoo sheego laakiin isku soo wada duubo oday dhaqameedka ayaa Puntland iyo Somaliland wuxuu ugu baaqay inay markaasi dagaalka haatan ka soo cusboonaaday deegaamada gobolka Sanaag ay markaasi labaduba ciidamadan ayaa maalmihii u dambeeyay waxay u soo ruqaansadeen waana markii ugu horeysay oo ciidamo tiro badan ay deegaamada gobolka Sanaag ku soo qulqulaan kana kala yimaadaan Puntland iyo Somaliland
وأحمد عبد الله عيسى أحمد عاشور تلفزيون كعالمي Somali News TV degmada Ceelbo ee gobolka Sanaag.